madaxweynaha mamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xalay ku hoyday degmada xudur ayaa kulamo la qaatay maamulada degmooyinka gobolka Bakool iyo kan degmada xudur isagoona kala hadlay arrimo kala duwan oo quseeya gobolka Bakool mas'uuliyiinta oo la kulmay lafta gareen ayaa waxa kamid ah maamulada degmooyinka xudur rabdhuur iyo tiyiglo isagoona kala hadlay dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool iyo culeysida ay ku hayaan dhaqaaqa al-shabaab gudoomiyaha maamulka degmada xudur ee gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed oo sharaxaad ka bixiyay kulanka ay la qaatay madaxweyne lafta gareen ayaa sheegay in madaxweynaha ay gudbiyeen dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool gaar ahaan xaaladda adag ay ku sugan yihiin shacabka ku nool degmada xudur taasoo u go'doonsan dagaalamayaasha al-shabaab waxa sidoo kale uu sheegay gudoomiyaha in madaxweynaha uu ballan qaaday in si dhaqso leh wax looga qabto gaar ahaan si degdeg ah go'doonka looga qaado degmada xudur bilihii la soo dhaafay al-shabaab ay saareen culeys xoog leh taasina ay keentay in xaalado bini'aadanimo laga soo wariyo degmada xudur iyo degmooyin kale oo ku yaala gobolka Bakool madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sidoo kale waxa la filayaa in kulamo oo la yeesho saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Itoobiya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada xudur si ay ugu wada tashadaan sida ugu fudud ee looga qaadi karo culeys ka heesa shacabka ku nool degmada xudur iyo degmooyin kale oo ku yaala gobolka Bakool madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa shalay gelinkii dambe gaaray ee degmada xudur ee gobolka Bakool isagoona u kurgalay xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin shacabka ku nool degmada xudur sidoo kale safarka madaxweynaha ayaa waxa kaga horeeyay wasiir ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas ay ugu horeeyeen wasiirka maaliyadda kan gaadiidka iyo wasiir kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo u kurgalay xaaladda dhabta ay ka jirta degmada xudur ee gobolka Bakool toddobaadkii la soo dhaafay ayaa shacabka ku nool halkaasi waxay sheegeen in si dhaqso leh aan laga soo gaarin shacabka ay ka dilaaci karto macruushii ugu daran maadaama aysan dhulka waxba u soo marin degmada xudur ee gobolka Bakool oo kaliya laga qudiyo sida ay sheegeen shacabka ku nool hawada taas oo micnaheedu ay tahay in diyaarado oo kaliya wax lagu keeno ciidanka ku wada sugan degmada xudur haday ahaan lahaayeen daraawiishta koonfur galbeed militariga Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ayaa gabi ahaantooda waxa ay yihiin kuwa wax walba oo ugu yimaada dhanka xirka balse shacabka waxba haysan ayaa waxa dhibaato ay ku noqotay arintaasi loorka bariiska ayaa la sheegay in uu cageen lacag ku $70 taasna shacabka ay sheegeen in dhibaato weyn ay ku qabaan Ismaaciil Abubakar Bulshada Kasmaal TV Muqdisho